دنت وحقنا وينها نرودنا أصاونا دنت وحقنا قادرني وانو حول الله رحم هلكم وحنا لا فردida Cabdi Axmed Kaahin oo ah fanaanad iyo gabadh activist oo community-ga Soomaalida aad iyo aad uga cadcad haday noqoto xagga iskuulada haday noqoto wax qabadka dhalinyarada haday noqoto xagga waalidka iyo familiyada intaba isku xidha Cabdi maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada Soomaalida qurbaha joogta oo qaasatan xagga wiilasha aad looga cabanayo marka su'aalan ku weydiinaya wiilasha iyo gabdhaha maxaa sababay in sanadkan maanta la yiraahdo wiilasha aad bay ugu liitaan xagga familiyada gabdhuhuna ay xagga tacliinta family-ga waxtarka reer kulli ay ugu firfircoon yihiin maxaa labada wiilasha hoos dhigay gabdhahana kor u qaaday bal fikrada kullay aniga sida ay ila tahay aniga cilmi baaristayda yar wax baaray sida ila tahay baan ku sheegayaa waxa keenay sababta keentay horta dhaqankeennii Soomaaliyeed waad og tahay markii uu wiil ku dhasho waa loo mashxaradi jiray wiil baa dhashay ilililililili hebla maxay dhashay wiil bay dhashay ma sha Allah bishaas oo dhan feestay ahaan jirtay waxa laga yaabaa reerka ku xigay inay gabadhi u dhalato oo la yiraahdo war hebla maxay dhashay hebla waxay dhashay maxay dhalay lahayd wixii iyada is dhashay wixii ay walba dhali jirtay baa dhashay sida ayuu dhaqanku ahaa wiilka iyo gabadhii baa soo koraya marka wiilka iyo gabadhu ilaa 5 jir ay gaaraan shaqooyin kala gaar ay kala gali jireen gabadha waxa la oran jiray guriga ka shaqee weelka inoo dhaq cuntada inoo kari waxaasay ku soo barbaad jirtay bare jirtay ha fadhiisani na ordo wiilasha cuntada si waxa laga yaabaa wiilkii ka weynaa inay cuntada siisa iyadu oo u shaqeyso na orod ma wiil baa qaybsan gabadh na ordo shaqada qabso wiilku banaanka u ordi jiray waxa la oran jiray banaanka ku soo ciyaar waxbuu soo dili jiray waxa la oran jiray fariid dhalay intii lagu dili lahaa wax soo dil baga nin ragii waa kii wax soo dila waxa kale oo la oran jiray markuu guriga rafaco uu reerka la dagaalamo oo waxa gabdhihii cuntada u karin jiray waliba uu dilo waxa la oran jiray xiniya shidaya daaya nin xun maahe waa xiniya shidaya waxaan u malaynayaa xiniyihii shidaya waa kuwa maanta halkaan la keenay inta bitaysa talabaad aan weydiinaya Soomaalidu waxay tiraahdaa dhaqan iyo caado uma lihin dhalinyarada tan qurbaha joogta waxay sameynayso daraaga iyo islaynta xabada isla dhacayaan iyo arrimahaas fikrada ma nala qabtaa mise fikrad ka duwan baad qabtaa cadaalada waxa weeyaan waxa tiri Soomaalida waxa tiri haday Soomaaliland dhaqan iyo caado uma lahayn jirin dilkan iyo dagaalkan iyo buuqan Soomaali dhaqan iyo caado u lahayn jirtay dilkan waayo waxa la oran jiray ninka kaliyata oo inaan ka yar ku soo koray dhagihiisa ku dhici jiray ee la faaniya wuxuu ahaan jiray ninka dilaaga ah waxa la oran jiray hebel boqol uma ka badan biyaha boqol يعني بقول بودلا وفانكين وقدم بياهي ويلك دقيسي بكسو كوريا أديركي وادلا أبتجي وادلا وذا الدلا ميرن بالفارج ري مركا ويلك الدلا بنخونيا كبدي يي راعيسا يدو يي اكتنغرينيسا هو يد باكتنغرينيسا هو يد وحبي حنانيسا هو يد قرابده خيريسا هو يد عروتيده وحسيسا هو يد نيكيده u roontahay ehelkay u roontahay hooyadu had iyo jeer wuxuu bay xanaanaysaa waa naxariis weeyaan hooyadu marka gabadhii hooyadii bay agtigareynaysaa markii qurbihii la yimina iyada un baa sidii ugu faraha badan ehelkii wax u dirta oo dadka wax dira gabadhaha ugu badan ama hooyooyinka ugu badan ba wiilkii aabihii buu agtigareeyay waayo aabihii dilaabu ahaa marka runta isu sheegno wadankeennii waxa ka dhacay wada ogtihiin wali hooyo war loora lama arag ama hooyo ciidan wada tamiyaad aragtay weliga meenu aragnay laakiin aabayaashu wixii war loodhadi faraha badnaa ee ciidamada hogaamin jiray ee bulshada leeyin jiray ee maalin bareer ku duuli jiray ee meel hablaan qabsan ku faani jiray waxay ahaayeen aabayaal bay ahaayeen wiilkii aabihii uu raacaya markaas waxaan kaga jawaabaya taas dhaqan uma inaan lahayn waxan daraaga marka aad sheegto daraaga waa runta noocyadan kala faraha badan dhaqan uma inaan lahayn waa runta daragadan casriga laakiin midaynu lahayn baa jirta wadankeeni waad la socotaa sidoo u baabiyay qaadku waad la socotaa qolo waliba daraag bay dhaqan u leedahay annaga kaynu leenahay waa qaad halka waxayna keenay waxyaalaha kamid ah uu faraha badan uu kamid yahay marka ha oran wiilku aabihii uu raacaya gabadhu hooyadeed bay raacaysaa bal hooyo iyo aabare isu miisaan dhaqankeena Soomaaliga ah siday u kala naxariis badan yihiin gabadhii hooyadeed bay naxariisti ka raacday wiilkan aabihii buu ka raacay dilaagi عذر
حق وحبرشة مركي تماتو تاسوا فاميدي iyo dhaqankii xagga waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha iyo ma kula tahay iskuulada iyo waxa ku dhex jira community-ga u shaqeysay iyo ma ku fiican bay kula tahay labada wallahi wiilal badan oo si fiican wuxuu bartaa way jiraan laakiin majority gabdhaha ayaa aad iyo aad iskuulada ugu fara badan ama se kuwa jaamacadaha aad iyo aad gabdhaha ayaa ugu xoog badan sababtana waad garanaysaa wiilashii qalqaalinimo kale iyo hawlo kale iyo hawlihii aynu ka soo hadalay ayaa yaraynaya waxbarashadoodii gabdhaha markaa dhaqankeennii hore gabdhaha lagulama dadaali jirin iskuullada saad la socotaba waxaa la odhan jiray gabadhu hadday wax barato yay wax u baranaysaa dee reere kale u tegaysa wax u baranaysaa baa la odhanayaa yacni reeraha guursaday wax ku anfacaysaa annaga naguma anfacayso sidaa daraaddeed aad looguma dadaali jirin waxbarashada gabdhaha wiilasha ayaa lagu dadaali jiray marka qofku waxyaalaha cadaadis ka soo maray wada ogtahay halgan dheer buu galaa marka waxaan malaynaya waa halgan bay gabdhuhu ku jiraanoo inay ciil baxaan bay rabaan inay wax bartaan bay rabaan dee waxbarashaduna adduunka waa ka kala saarta oo waxa weeyaan adiga oo cabdi lagu yidhaahdo ayaadan cabdigaagii ahaanayn markaad wax baratay waxa lagu odhanaya doctor cabdi title kalaad qaadanaysaa ood xidhanaysaa marka darajooyinkaas ayaa nagu yaraa haddaanu haweenka nahay markaa titleka ayaanu xoogeynaynaa waxbarashada saasaa keentay ciil yaraan qabnaa ciil baan qabnaa annaga haddaan haweenka soomaaliyeed nahay talada waddanka wax badan kuma lihin tacliintana laguma dadaali jirin sidaa daraaddeed habluhu aad iyo aad bay u dadaalayaan waxaan rabnaa inaanu qayb libaax ka qaadano nabadaynta waddanka waxbaridda waddanka dhaqaalaha waddanka talada waddanka inaanu wax ka qaadanaan rabnaa saa daraaddeed waa la tartamayaa barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen baan leeyahay gabdhaha iyo wiilasha ugu dambeynta cadar maxaa talo iyo waana aad u gudbin lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan wiilasha waxaan u gudbin lahaa wiilasha waxaan leeyahay waxaad tihiin mustaqbalka soo socda madaxdii u talin lahayd ummadda Soomaaliyeed ee lagu dayin lahaa baad tihiin marka waxaad ogaataan inuu ka baxay group dhan oo dhexe oo 20 sano intii u dhaxaysay wax la bartay inuuna jirin waddankeennii gaam dhan baa maqan group dhan baa maqan marka waxaad ogaataan dalka iyo dadka cid uma maqna ceelo uma qodna inaad madaxdii berida tihiin ogaada horta inaad xishootaan inaad ku fikirtaan inaad ummadda mustaqbalkeedii tihiin marka haddaad meesha ka baxdaan ummaddii dhanad way baaba'aysaa marka bal idinkoo laydin waaniye iska dhaafay inaad xil dhan haysaan oo ummad idin sugayso bal horta ogaada waayo cid u maqanin waddankeeni ma jirto gruubkii madaxdii berita ayaa tihiin bal xil isa saara oo rag waaweyn iska dhiga oo sidan hala iska daayaan odhan midda kale waxaad iska dhaaftaan fikradan qadiimiga ah inagu duuban ah ninku hadduuna boqol dilin waxba maaha ah waxaad iska dhaaftaan fikradan ah haddaadan magaalooyin dhan gubin waxaa tahaaba iska yar ka soo noqda dhaqankaas ma wanaagsana dhaqan wanaagsan hadduu yahay oo dilku uu wax taro Soomaaliya bilad ku qaadan lahayd marka ka soo noqdaan ilaahay dadweynahan haruurina hasaawina danta u hagna